maanta ay taariikhdu tahay 3 bishii afraad 2021 maalin sabtiya marka hore ilaahay baa mahad iska leh marlabaadka waxaan mahadnaq balaadhan u dirayaa taageerayaashayda khaaska ah mid qabiiliya iyo mid saaxiibtinimo iyo mid xididnimaba dhammaan daafaha dunida meel kasta ay ka joogaan gudaha degmada Berbera iyo gudaha gobolka Saaxilba runtii waxaan mikrofoonka u qaatay hadallo daciifa oo maalmahanba baraha bulshada ka socday iyo su'aalaad fara badan oo igu soo noqonayay inaan tartankii doorashooyinka ka hadhay horta ragga ila tartamaya ee musharaxiinta hadday jeclaayeen in sideera basiidkaan ku hadho horta maanta fadhiuma yaalo maantaba fadhiuma yaalo anigu runtii halkan maanta uga tartami maayo musharaxnimo golo deegaan oo kaliya xubinnimo golo deegaan maaha ujeedkaygu 8 sanadood iyo saayid baan soo ahaa xildhibaan experience waa arrimo fara badan baan maanta golaha dhexdiisa ku leeyay xubintii ugu daadeereed baanay waan ku dhex koray golahan halkay ka bilaabmayso halkay u socotaan garanaya kulli rag badani maanta intii garanayeen way dhaaftay baasho waxay isku dayeen rag badan oo nabtirsiin wadaagnaa inay lagu ay qabtaan laakiin waxba i tareen aniga waxba i tareeno waa horseedkii guushayda intanay sameeyeen 3 nin bay qodobkan ku ururaysaa aniga warqadan la baahiyay ee macnaheedu in doorashadii la iga reebay xisbiga wixii ka tirsanay aniga oo mahadnaqaya waxaan soo aqaanaa xubinta ugu firfircoon ee ugu waaya aragsan ee xildhibaanimo waxay tahay yaqaana ee ku jira musharaxiinta taamidaan doonaya warqadda komishanku soo qoreen ay yiraahdeen maxamed cali waxa ka dhiman tii tacliinta cadayntii tacliinta runtii markii aan tagay komishankuna arintaydii wiiga dhageystay komishanka tacliinta sare runtii raaligelin bay ka bixiyeen waxay ii qoreen warqad hore oo ay igu leeyihiin ninkaa wixiisii waanu ka haynaa dokumentigiisii shahaadada istaana wax gabood geli kara oo dhuudhuuma karo oo aan tartan gelin karo maaha runtii warqad bay ii qoreen markii hore warqadda ay ii qoreen waxa igula jira nin ka tirsan isaguna xisbiga wadani oo musharax Hargeysa ka runtii markii hore aanu ujeedkan u socday waxay ahayd in la cadeeyo in khalad dhacay laakiin markii dib waxaan garwaaqsaday inaan ku noqdo tacliintii sare aan idhaahdo wardaan uu cid baan ka sharaxanay gobol kalena oo degmo kalena waan ka sharaxanay warqad cadeynaya qora warqad labaad bay tacliinta sare qortay oo ay kaliya igu cadeynaysa markii hore musharax baa ila socday iminkana tii kaligeedna waa tan runtii horta waxaan maan jeclayn inaan yootan iyo TV soo fadhiisto laakiin fariintan diraya waxay tahay laba qodob mid taageerayaasheedaan u dirayaa waxa leeyahay warqadahan la soo qoray idinkii way dhiirigeliyeen anigu ogsoon inay dhiirigeliyeen ninkii jeclaa ee markii hore wada jiray iga reebay calina horta maanta fadhiyo u yaala horta maanta ma jirto ninkii jeclaa inuu soo saaro oo golayaasha deegaanada dalka uu xubinnimadeeda iga mid dhigana maanta wuu haystaa fursadii uu igu soo saari lahaa taageerayaasha waxaan u dirayaa oo leeyahay ujeedkeenu waxa weeyaan degmada Berbera inaynu ugu cod badano kay nacab iyo kay jecel labadaba waxaan jecelahay inaan noqdo mas'uulkoodii inaan u cadaalad sameeyo oo kii ugu tabcaya kuwaan ugu tabcinba aan noqdo adeega degmada u baahan yihiin hogaamiyihii u ful lahaa runtii hor mahadnaqayaa kacagaha jiidaya iyo kay taageeraya wuu dhisaya kacagaha jiidayana wuu dhiirigelinaya macnaha ma yihiin musharax hay'addu ka soo jeedo kaliya ku qanacsan waxaan ku qanacsanahay ummadda reer Berbera oo dhan ummadda gobolka Saaxil oo dhan xisbigan aan ku jirana waxaan u tartamayaa inaan hogaamiyaashiisa ka mid noqdo marka runtii xisbigayga aniga mahadnaqaya taageerayaasheeda mahadnaqaya waxaan leeyahay tartankii weyn sii xoojinaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.